caaw ku yaro xaafadiina kamida ayaan Boorame ku tooganay ku yaraad laascaano sheegtay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u soo galay inaan warbixin kooban idinka siiyo insha Allah taala wararkii ugu dambeeyay dilka loo geystay wiilkii dhalinyarada ahaa ee markaasi maanta lagu toogtay galabnimadii maanta lagu toogtay magaalada Boorame halkaas oo ka baran jiray jaamacadiisa wiilkaas waxaa lagu magacaabaa Ibrahim Salaad oo wiilkayga dambeeya oo wiilka dhalinyarada ah oo wiilka aan markaasi buuxin da'da 20 markaasi sida ay warbaahinta dhamaan ama xogaha kala duwan aan Boorame ka helinaya sheegay wiilkaasi inay toogteen ciidamada maleeshiyaadka jabhadda ee sanam sida la sheegay wararka hordhaca ee hadda ka soo baxay Boorame waxa la sheegay wiilka in lagu dilay calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isagoo huwan haddaba waxaan kaloo idin soo gudbin doonaa insha Allah taala codad ay soo duubeen Ragii markaasi fuliyay dilkaasi ee geystay iyagoo markaasi ku faanay leh Annagaa Dilay dabcan waan idin sii deyn doonaa insha Allah taala waxay codadkaasi soo duubeen hadda aan idila hadlayo wax yar ka hor ayaa codadkaasi soo duubeen dabcan waan idin dhageysan doonaa insha Allah taala intaan codadkan daarin waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiyadeeyo dhamaan ehelkii iyo qaraabadii uu ka soo jeeday Ibrahim Salaad oo ku shahiiday lama oranayo uu ku dhintay oo ku shahiiday magaalada Boorame cidda dilka geysatay ma aha beesha sharafta badan ee reer Awdal ama reer Boorame balse waa dadkii cudfiga qabyaaladda cuqdada iyo nacaybku intuba uu hareeyay isla markaasna uu ka buuxay ayaa dilkaas geysatay sida la sheegay wiilkaas wuxuu ahaa dhalinyaradii markaasi reer Puntland halkaasna ka baran jiray jaamacadda Amuud dabcan waxa uu isku soo xardhay calanka ama direeska dharka loo yaqaan calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ah calanka ummadda Soomaaliyeed ay wada leedahay waxaan nasiib darra oo maanta adduunka iyo caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed maanta arkayaan in maanta dhalinyaradii dhallaankii Soomaaliyeed u bixi dalkan u soo kacayay wax u soo baranayay koox jabhada oo hadii alla ku ummadii Soomaaliyeed waqooyi qayb kamid ah ku nool in maanta waxa oo dhax dhigtay oo ummadaasi doonayso in hadii alla ku afdubto ummadaas oo aragtidooda iyo mowqifkoodu yahay Soomaali weyn fikrad waqtigeedii timid cid celin karta ma jirto munaasabadihii kala duwanaa ee 1 Luulyo 16 Juun sidii Boorame laga xusay laascaano laga xusay buuda laga xusay ergaabo laga xusay wala socoteen fikrad waqtigeedii timid cid hor istaagi karta beeratay ma jirto waxa la rabaa ummad baa la rabaa in la caburiyo ummad waxa weey Soomaali weyn oo calan Soomaaliyeed aaminsan ayaa la doonaya in la caburiyo waa tay wiilkaas oo reer Puntland Ibrahim Salaad baa la yiraahdaa runtii waa nin dhalinyaro oo sawirka ay ka dambeeyay weeye aad baan uga xumahay ma uusan dhimanay waa u shahiiday geesi buu ahaa runtii waxa uu mudan yahay in taala loo dhiso mudan yahay waa la iskaga daba imaanaya dilka loo geystay Ibrahim Salaad waa la iskaga daba imaanaya cid maatadiisu iyo caruurtiisu iyo dhallaankiisu iyo ubadkiisu iyo odayaashiisu iyo dadkiisuba ay garaway boosaasay galkacyo iyo laascaano dadsan yihiin waa la iskaga daba imaanaya waaye haddaba marka waxaan idinku sii deenayaa bal codadkii ay afnugaal media soo duubeen khadka taleefanka afnugaal media oo ah khad furan cid kastana markaasi ay hadii la guuro yahay ku soo gudbin karto codkeeda dabcan dhowr jeer ayayna soo waceen kama aanu qaban oo cid walba kama qabana dabcan cid aanu garanayno reference-gooda tixraaciga aanu garanayno mooyane kama aanu qaban haddaba Ilaahay baa ka hadlayay maana ka yeersiyay Annagaa Dilay ama anaa dilay maana ka yeersiyay waa kuwii dilay weey waa kuwii asnab ee maleeshiyaadka jabhadda asnab waa kuwii dilay weey codkan rabaa insha Allah taala inaan hadda idin daaradii rabay insha Allah taala dhageysta codkaas oo ah waxa weey codkii Ragii markaasi diray والسلام عليكم وين سلام أفنقالي عاو ويسكبل أما تتساليك وعيانك وشرتين كانوا كبحين قروا وكسوق الغنية عاو كويرو حافدينا كمدا يعني Boorame ku tooganay كويرادر لاسعانو sheegtay Soomaaliya caayna inuu gaar ka soo sheekeeyna
لا وين كل حسيننا دلاس عانودي مادام بلوكاس قاري صورة تقرق ماد دي كانوا اللي تشوفنا يا عوار دقيني رانا ولا توك كل يد إنجنير كسرت كدميني هن تشوفنا عاو بورما دي كانوا اللي تشوفنا يا هذا وريا أي قف بهذا الكوسة صحية وعسكرتي وعسكرتي الدشوي بورما كسوي هاي قف بهذا الكوسة صحية ما فهمت كان عادة جنوري وسنة كدميني ومشيرتين بولي وحوي وان ديلينا وقليس كدم فردان ليسوها يمحال ليسوه فاني ويه وعدد بدن بانك هيا ويسوه اي كما تشوهين عدكنا الدبا يسو دوبا يا وإن مدينة إيراب بقيا أنا ديسو جوابي كري لا ديني ما قرن بيديسو جوابسي كهالله كسوال كيري رعا ومدحة لقتوكتي هذا سيدك دقاء وقصوا هالله كيري كعانك كديريي الله نحرسته وانا الإسلام الله نحرسته لكن هذا الحبكي لو قلت رجل دافي كسر هالله وارو دقيس أنا دريد المشاق سحق بانه قارن كي يجيبان شوكا قارن كي يجي الدفاع حبته لو قلت هنا كيرو وكنت غير سنة هاي لو ما بانا هذا نيرو أنتم ما شرتوا كيبد وحبرش له فوري أما كيس الدورين على كيس ومالي كل حده لو ما بانا عاد كشكين سند ديار ما كواي أروح هذا الوقت كهيرته دريد المشاق سحق هذا إتشاركوك صوتها بتمشيتك هاجر والله بالله تمريك شوكان دقروي شوكان نناظر لما ذكريه دريد دي بكرة شيء هاجرنا هوال والد هوال والد تذكر سوني لا صاحب ده أنا كان سيرة قال قرالك يقدر صاحب ده أنا أفكر مو والبا لو متشوا أفكر مو والبا أفكر ما قبته دقيه يقول ما مغلان موجتين هذا لذا عن دوبي وإذا مدي ميليشيات كأسنا مركز ديلay هليي مشاهد إبراهيم صلاة إلهي نحريس جنها كورابيو وشهيد وسيري فردان ليسوها يمحل ليسوقو فاني عدة ودada laascaanood waxa weeye garaw tagtaa ee baasaboorada doonata cida maanta garaw joogta ee beeshiina ma idin la tahay badbaadayaan nacayb daaroodnimo ayaa wiilkaaga lagu dilay wallahi nacayb daaroodnimo ayaa lagu dilay inaan nacayb Soomaali ahaan iyo nacayb calan ahaan inaan lagu dilin nacayb daarood ahaan ayaa lagu dilay Soomaalidu way wada degan tahay waa is dhashay waxa way isu yihiin laakiin maamulka maleeshiyaadka jabhadda SNM waxa moodaa dhaqankii Soomaaliyeed inay ka tagayaan Soomaali waa wada taala Soomaali waa is wada dhashay laakiin waxa muuqata cidda dhaqankii Soomaaliyeed ka tagaysa ee xumaynaysa ee maanta dooxa sameynaysa inay tahay SNM bal waxay ka faa'iidaan hal arko bal wixii laga faa'iidoy hal arko isaaq barbarana isaaq garawana waa degan yahay boosasana waa jooga kacayna waa jooga meel walba waa daadsan yihiin waxa weeye waxa maanta caawa hadii maato iyo dhalinyaro maanta biriskooda ka baxsanaya garaway boosaso caawa hadii ay galaafato cidii galaafatay cidii dhibaatada iyo dhitada maanta caawa taal ka shaqeysay waa cidda codadkooda la maqlayay waa cidda dhiigga islaamka ku faanaysa waa cidda la wiil ma jeerteena dil وعدا waxaad arkaysan ku wada hadlas mal waxay ka faa'iidaan ayaan arkan doona insha Allah taala waxaan leeyahay dhamaanteynba in badan baan u sheegay oo cadeynay ma jirto wax Soomaaliland la yiraahdo war meesha isaaq waa jooga oo dabeyntii waxaan leeyahay jawaab baan sugayaa jawaab cad baan sugayaa jawaab cad wiilka Soomaaliga ee calankii Soomaaliyeed lagu midabto kooray ee lagu dilay ee wax baranayay ee hadii alla ku royo dhalinyarada ee aan labata ka buuxin adduunka iyo caalamka ba ila tuso waa ila garaw ila boosaaso waa la garanayaa dhitada cidii dhigtana waxa waa cidda codadkooda iyo muuqaaladooda iyo hanjabaadooda dhageysanaysa ilaahay naxariistana ha ka waraabiyo dhibkaad u geysateen dhib ka xun ama dhitada caawa dhigteen waa loo jooga insha Allah taala waa loo jooga إلهي نحرسنا كورابيو
dhammaan familkiisii iyo caruur walaaladii iyo reerkoodana waa ugu tacsiyeena insha Allah ta'ala waxa wiilkaasi dilay waa niman isaaqa oo doora oo hadii la kure maamulka jabhada maleeshiyaadka ka tirsan beesha sharafta badan ee waxa way gudobeersi ama samaroon reer Boorame waa ognahay dambiga waxba kuma laha nin waxa way reer Booramana inuu xabad u taago nin hadii la kuriyo Soomaaliyeed waxa habeenka xalatay waa ognahay waxba magaalooyinka ha ku nabina waxa aan jirin ee beenta ah booliiskii reer Boorame ayaa dilay waa ognahay laajada aan hadda idii daarayna waa garan kartaan cid iskale ama cid ku hadasha waa maqlay warar bay hadda soo gudbinay ay leeyihiin wiilkii yaraa hadii alla ku roon yahay calan Soomaali lagu dilin askarigii bay af dhaafeen wararka Romaniska waa ognahay suuqa rabeen inay galiyaan oo ceebtooda iyo hadii alla ku roon yahay waxa Soomaali hadda wada aragtay inay ku moosaan taasina ma jirto insha Allah ta'ala Ibraahimna jawaab buu heli doonaa Ibraahim kuwii dilay kuwii dhiig ka daadiyay wiilka halyeeyga jawaab cad bay heli doonaan dhitada cid dhigtana waxa weeye hadii la ku Soomaali marxaatiba ka taa yaa horay yaa la soo kala caban cidda caban doonto waxa weeye cidda caban doonta cidda ilaa Muqdisho ilaa Garowe ilaa Boosaaso cidda taala cidda caban doonta insha Allah ta'ala aad ba ma shaatiin ilaahay naxariisana ka waraabiyo Ibraahim salaamu alaykum